Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawow daawade, intaynu u guda galin barnaamijkeena, waxaynu doonaynaa inaynu kala saarno laba eray. Waa maxay karaamo, waase maxay mucjiso? Si guud waxaa jiro wax la yiraahdo qawaariqul caadaad. Waa wax ka baxsan dhaqamada bini'aadanka ee aad taqaano. Shaygaasi ka baxsan dhaqanka haddii la siiyo rasuul ama nebi sida ushii Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam amaba gacantiisii markuu jeebka geliya cadaanaysay ayadoonan wax dhibaato ah qabin, ama kitaabkii mucjiska ah ee Qur'aanka Kariimka ee la siiyey rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam, waxaa loo yaqaanaa mucjiso. Laakiin haddii la siiyo shaygan la yiraahdo qawaariqul caadaad ama waxa ka baxsan dhaqanka qof saalix ah oo wanaagsan sida saxaabadii, waxaa loo yaqaanaa karaama. Soo dhawow mar kale aynu u guda galno barnaamijkeennii kumaan ahay. Waxaan doonayaa inaan tilmaamo qof leh karaamo. Tilmaamtaas kadibna aad garato magaciisa, commentigana aad noogu reebto. Laakiin haddii aad garan weyso, waxba ha welwelin, maxaa yeelay sikimada ugu dambeeya ee barnaamijka mar walba waxaynu ku xusnaa dadkii aynu soo sifeynay magacyadooda. Waxa uu ahaa hogaamiyihii labaad ee khilaafada Islaamka kadib geeridii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. Waxa uu kaluu ahaa qofkii ugu horeeyay ee lagu magacaabo amiirul mu'miniin. Waxa uu mid ka mid ah saxaabadii rasuulka laguna magacaabo Cumar ibn al-Caas uga dhigay waali ama madax magaalada Masar. Cumar ibn al-Caas markii uu tegay Masar wuxuu ku arkay dhaqan aad u foolxun, kaas oo ah gabadh bikra ah oo u dhalatay qurux inay dilaan, webigana ku tuuraan, deedna webiga uu biyo keeni jiray. Labadeeda waalidna ay hanti fara badan sii jireen si ay u qanciyaan. Dhaqankii ayuu ka joojiyey, laakiin macal waqt waxaa dhacday in webigii biyihiisii ay yaraadaan, deedna uu sii guro ilaa reer Masar ay ku dhawaadeen inay magaaladaba isaga baxaan, maxaa yeelay waxay aad iyo aad ugu tiirsanaayeen webiga ilaa haatanna ay ku tiirsan yihiin. Markii uu la kulmay xaaladda, wuxuu fariin u diray madaxweynihii labaad ee Islaamka. Laakiin madaxweynahani markii ay soo gaartay fariintan, wuxuu ugu jawaabay Cumar ibn al-Caas, waad asiibtay Alleylehe, sidii loo baahnayna waad yeeshay. Laakiin mid samee, waxaan soo dirayaa warqad, waxaad u wacdaa dhammaan cuqaasha reer Masar, isuguna dul keentaa webiga dushiisa. Waxaad ku dul furtaa webiga waraaqda aan soo dirayo, ku dul aqri, deedna webiga ku tuur, wuxuu Rabbi ka falana ila eeg. Waxa uu madaxweynihii diray waraaqdii. Waa ay u tagtay Cumar ibn al-Caas, sidii la amrayna waa uu sameeyey. Waraaqdii waa uu furay, waxaana ku qorneyd: webiganow, haddii aad ku soconaysay amar iyo weliba awood aad adigu leedahay, ha socon, inagu kuma baahnini. Laakiin hadduu ku socodsiinaya Allaha waaxidka ee qahaarka ah, waxaynu weydiisanaynaa inuu ku socodsiiyo. Waraaqdii ayaa webigii lagu tuuray, wuxuuna kor u kacay ilaa 16 diraac. Ilaa waqtiga aynu hadda joognana muusan istaagin, mana istaagi doono insha Allah. Gunta iyo gabagabada qisadan ayaa waxa ay tahay inaad isku daydid magaca uu leeyahay saxaabigan aynu ka sheekeynayno, ahna madaxweynihii labaad ee Islaamka, ahna shaqsigii ugu horeeyay ee lagu magacaabo amiirul mu'miniin. Haddii aad ka heshay fiidiyowga, like waad saari kartaa, waadna nagu soo biiri kartaa adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta. Waad ku mahadsan tahay haddii aad garatay qofkii aynu soo tilmaamnay magaciisana aad noogu soo xariiqday dhanka hoose ee commentiga. Laakiin haddii aad garan weysay, laa taxzan, waxa uu ahaa Cumar bin Khattaab radiyallahu canhu wa ardaa, Cumarul Faaruq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Astawdicukumullah.